wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxay xariga ka jareen dib u habeyn lagu sameeyay garoonka kubadda kolayga lagu ciyaaray ee ku yaala magaalada Beledweyne. warkaasna waxaa soo diray Aadan Cabdi. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanaysa maamulka gobolka Hiiraan ayaa dib u dayactir ku sameysay garoonka kubadda kolayga ee magaalada Beledweyne oo muddo ku dhow 25 sanadood aanan shaqeyn. munaasabada xariga looga jiray garoonka kubadda kolayga Beledweyne waxaa ka soo qayb galay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabelle, gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Beledweyne. qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay furitaanka garoonkan ayaa soo dhaweeyay waxaana ay sheegeen in uu qayb ka qaadan doono isdhexgalka bulshada. inaan goobjoog ka ahaado garoonka basketballka ee gobolka Hiiraan ama degmada Beledweyne oo runtii farxad gelinaya qaabka uu sameeysan yahay. waxaan maleeyahay maanta barnaamijka bilow qurxan waaye, laakiin waxa laga fikiray waxa weeye future dambe sidee marka garoonkan intaan in la eegsido uu sii bilaaran karaa, sidee loo helaa ciyaartooy, sidee amnigiisa oo xagga ciyaartooyda ah, sidee loo helaa ciyaartooy qualified in iska furo maanta gudoomiyaha gobolka yimaado oo wasiirka iska yimaado iska baxa ma haddii aan ku soo noqono garoonkan wuxuu xirnaa dhowr iyo 20 sano. maanta waxaan ku soo noqono masraxii adduunka. waxaan filaynaa in meeshaan aad u qurux badan tahay, nabadana ay heer ka ciyaarayso sida maanta noo lagu dhisay. runtii marxalado badan ayuu soo maray meelahan dad baa deegaan u ahaayeen in 20 sano in dad deegaankooda ahaayeen dad baa deegaan waa iska jabsaneed. runtii maanta waxaa farxad noo ah inay gacantii soo gashay. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa sheegay in bulshada Beledweyne looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada ayna ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. fiir Cali Jeyti meesha kama bixin geed cadayo ka baxay maaha, jee wasiir meesha ka baxay maaha, waana la bedelayaa ninkaana bedelaya, laakiin meelad ku nacfi kartaan iyo wax aan kala dhaxalnay inaan dhisnaa loo baahan yahay. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdiqani Janyo ayaa sheegay in garoonkan uu muhiim u yahay bulshada Hirshabelle laguna soo saari doono ciyaartooyda kubadda kolayga ee Hirshabelle. waxaan aniga halkaan kula dardaarmayaa dadka ku nool Hiiraan inaan waxa aan haysanana ilaalsano, aan ka shaqeyno walaaltinimo. gudoomiye Cali Jeyti wuxuu dhahay Cali Jeyti ma joogayo, waa runtii Cabdiqani Jeeyna ma joogayo oo anaga geedka qoonaa meesha ka baxmani, laakiin aniga asal wasaarad ahaan waxaan ku dadaalaa inta ilaahay tabarteeda ilaahayna ha ii waafajiyo wanaaga iyo ka shaqeynta isu soo dhaweynta bulshada aan. dib u dayactirka garoonka kubadda kolayga magaalada Beledweyne muddo 25 sano kadib waxa uu qayb ka yahay mashaariic horumarineed oo dowladda Norway ay ku taageerayso dib u dhiska Soomaaliya. Aadan Cabdi Axmed, telefishinka caalamiga ah Universal, magaalada Beledweyne. odayaal waxgarad